توصل ما هدي نشي خبر القسم وغشكي حولي من عالمة أو أرضيد أهل جعلين حرتها أهل جعلين كذا حرت المجتمع ونم أهل جعلين أخلاق ونكسن بإلهيسي تقوى بإلهيسي علم بإلهيسي الله كعبس بإلهيسي لكن إنك وحي إلهي كوها جاجية إسلام كل وضبيعات أذن ومركو أنت ومقالة سعودنا كبيه سينو قاتل الله ما أقوله مسألة كنت كره إنه قاتل الله ما أقوله أقل كمركو قالنا إسلام تكون شقيسته dari buu karay biyuhu dhaamin dabku shidi iyada dhanbu cuntada siisiin markaas ay oranaysaa magaalada sheekh bay ku haysataaye aniga arteeda shaydaan baa tahay khidmad bay oran hadalka keenay ma uu khidmayno uu khidmaya una ma hadlo ma sheekayo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa leeyay markii dambe waxay ku tiri anu hadee toola waan daalay xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaamay ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhiyo xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysatay in kaarqabtadan waa maxay sheekha dirata walla habaarka ku dhici taabo markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta adii xaaska aad iga dhigtay umul ciyaalka ilaahu waxay ugu hoojina maanta igu asto magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyay biyihii buu dhaamiyay ilaahu aniga islaantaas ilaahu islaantaay umada kale ilaali buu libaax socdo un baa u yimid hor fadhiista leeyahay sheekh xaabadii qurihii buu saaray libaaxii biyihii dhinaca kale ka soo saaray magaaladii wala soo maray sheekhu libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo la waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sidaa ilaahu inuu soo geli libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibu markaa libaaxii joojistay halkii buu kaga dhaadhiciyay xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaa bay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rabteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya ina kayda kunna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wata maanta xagga ka keentay oo iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo ma aragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaa bedel sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha allah ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman dee markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiyay innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aad leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadka guriga jooga